maalmihii la soo dhaafay waxaa la isla dhex marayay inuu Benjamin Netanyahu uu dhintay oo la dilay ee gantaal ku dhufteen Iiraaniyiintu isaga iyo walaalkiisba. Waxaa la xaqiijiyay in la dilay walaalkiis oo Benjamin Netanyahu walaalkiis inuu dhintay, laakiin Netanyahu inuu dhintay xaqiiqatan lama hubo. Waxaa jira propagandooyin fara badan oo la isla dhex marayo oo Mareykanka, Israa'iil iyo Iiraan dhammaantood mid waliba uu dhinaca kale ka faafinayo. waxyaabaha jira waxaa ka mid ah in xataa la sheegayo in Israa'iil lafteedu ay propagandadan faafisay iyada oo doonaysa inay shacabkeeda niyadda u dejiso. Shacabka Israa'iil oo doonaya inay si nabadgelyo u noolaadaan oo aan xisbiga Likud iyo Benjamin Netanyahu iyo xulufadiisa xagjirka ahi dagaalka ay wadaan shacabka badan oo Israa'iil oo ka soo horjeeda ayaa niyaddooda lagu jahawareerinayaa oo loogu talagalay in la yiraahdo ra'iisul wasaarihii baa dhintay oo marka ay walwalaan muddo kadibna hero soo baxay uu iska dhigo oo maandhiman uu yiraahdo, iyagoo dhanka kalena doonaya inay propagandada faafiyaan si ay Iiraan iyo shacabkeeda ay u farxaan oo u yiraahdaan ninkaasaanu dilay, kadibna muddo kadib niyadda laga dilo oo uu soo baxo yiraahdo maandhimanin oo uu iska dhigo hero aan cidna dili karin, iyadoo taasina ay muujinayso jahawareerin iyo propaganda badan inay ku xeeran tahay dagaalkan. Xaqiiqatan dagaalkani waa dagaal aan loo baahnayn inuu dhaco oo bini'aadamka oo dhan noloshiisii saameeyay, adduunyadiina qabsaday. Waxaa kale oo loogu talagalay dagaalkan Iiraan lagu qaaday waxyaabo badan oo inaga dahsoon. Waxaa ka mid ah waxyaabaha inaga dahsoon ee dadka caadiga ahi aanay u fiirsanaynin in Xamaas iyo Gaza dhibaatooyinka loo geystay ee aadka loo hadalhayay in dagaalkan hadda lagaga mashquulay oo aan ciidamada hadda Xamaas iyo Gaza lagu haynin oo aan dadkuba aanay saa u xasuusanin, iyadoo ilaa iyo haddana la weeraro Gaza oo dadkii la dhibaateynayo la gaajaysiinayo. Dhibaatadii hore loo geystay laga hadlayayna lagaba aamusay oo Iiraan iyo Mareykan iyo Israa'iil waxay sameynayaan adduunku ku mashquulsan yahay. Sidoo kale waxaa jira jasiiradda Abstiin wixii ka dhacay ee ceebta iyo fadeexadda ahayd lafteeda si adduunka looga jeediyo oo loo marin habaabiyo ayaa weerarkan loo qaaday, iyadoo Israa'iil ay Mareykanka iyo nimankii ay blackmailka ku samaysay oo uu ka mid yahay Donald Trump lagu khasbay inay weerarka qaadaan si aan loo fadeexadaynin. Marka waxyaabo badan baa ku daahsoon. Sidoo kale Mareykanka ayaa isaga u dhisay ujeedooyin kale oo uu ka leeyahay. Waxaa ka mid ah in si uu China ula dagaalamo in uu enerjiga iyo shidaalka caalamka gacanta ku dhigo. Venezuela oo ahayd meel qani ku ah ee shidaalka waa kii weeraray ee madaxweynihii soo xidhay ee qabsaday, haddana isaga haysta. Bariga dhexena waa haystaa. Waxa uu doonayaa Iiraan oo 80% shidaalkeeda China laga gado in uu gacanta ku dhigo, si markaa China enerjiga bariga dhexe oo Iiraan ka mid tahay iyo Venezuela oo China ka soo garan jiray hadda lagala wareegay iyo waxyaabahaas oo dhan gacanta loogu dhigo ayaa la doonayaa. Waxaa kale oo jirta dad xag jir oo Netanyahu iyo gruubkiisu ka mid yihiin oo iyagu wax Great Israel la yiraahdo raadinaya oo doonaya in ay wadamadan Carabta oo dhan intay qabsadaan kadibna nimankan Orthodox-ka ama xag jirka ah oo maaragtay waxyaabo khaladaad aaminsan oo Kristana iyo iyagu intay iskaashadaan ay aaminsan yihiin Nabi Ciise inuu soo degayo marka waxaad arkaysaa dagaalkan inuu maaragtay wajiyo badan leeyahay, xag diineed, xag juqraafiyeed, xag maxay ahayd dhaqaale, xag maxay ahayd fadeexada lagu daboolayo, xag wadamada China iyo Ruushka lala dagaalamayo oo enerjiga iyo dhaqaalaha laga cunaqabateynayo, xag maxay ahayd wadamadan Carabta in la qabsado la rabo, dhanka kale oo la rabo in Great Israel la sameeyo. Arrimo badan oo noocaasa ayaa waxaan dagaalkan ku xeeran. Ujeeddo kaliya dagaalkani ma laha. Marka runtii Donald Trump waa nin wadaada marka la eego xagga Christianity-ga. Waxyaabo badan oo khuraafaad ah oo diinana uu aaminsan yahay, wuxuuna isu haystaa inuu waxyaabo khayri ah sameynayo oo uu dad shayaadiina la dagaalamayo oo qaab noocaas u fikiraya isagu. Wuuba cibaadaysanayaa hadda waxaan uu sameynayo. Netanyahu laftiisu wax khayr ah inuu sameynayo isu arkaado oo ku cibaadaysanaya dadkan oo uu Great Israel sameynayo. Ninkan oo idiin muuqdo oo hadda ah nin aad maaragtay uga soo horjeeda Netanyahu oo ah xisbiyada mucaaradka ah ee Israa'iil ayaa wuxuu aaminsan yahay dagaalkan inuu yahay dagaal fashilan oo fadeexadaysan una baahan Israa'iil in laga badbaadiyo. Israa'iilna waxay u baahan tahay inay deegaankeedan ay hadda joogto kaliya ku noolaato oo aanay u gudbin wadamada deriska ah. Wadamada deriska ah waxay doonayaan inay si nabadgelyo ah kula noolaadaan. Waa sida uu ninkan iyo xisbiyadiisa mucaaradku ay aaminsan yihiin in Israa'iil colaad badan loo sameeyo
oo dadka lagu sii diro oo degaankii iyo colaad iyo gantaalo noloshii la qaso waxaa sababa abuu leeyahay Netanyahu iyo xisbiga Likud. xisbiga Likud xubno ka mid ah laftooda oo baartiga uu ka tirsan yahay Netanyahu xalee Benjamin uu ka tirsan yahay Netanyahu ayaa waxaa la aaminsan yahay in qaar ka mid ah ay xitaa ka soo horjeesteen oo ay leeyihiin qaabkan fashilaad ee fadeexadda ah ma ahayn in dagaalka loo galo. marka runtii dagaalkan waa dagaal xeel dheer oo fashilaad salka ku haya. waynu eegi doonaa bal maalmaha soo socda waxa uu ku dambeeyo.